السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta waxaa rabaa inaa idin tusiyo sida whatsappka computerka u isticmaali kartid. first whatsapp google ku qor, marka kuu soo baxa websitekiisa tag. laba qeyb jirto, adigoo browserka ka isticmaali kartid, adigoo computerka soo download gareysan kartid. kan waxaa fiican marka adiga oo waqti muayyan isticmaalaysa ka tagaysid. kan waxaa fiican marka adiga maalin walba computerkaaga ku jirtid. okay, kan aan ku dhufano marka ugu horeyso web page-ka. saint ugu jeedid teleefankaaga haddaa kan aad tixraacdid isla marka waxaa ku imaana meesha haddaad scan garaysid. waa idin tusinaa sida ku sameyn doontiin. page haddaan scan garayno isla marka asigaa soo qabsanaya waa kuu shaqeynaa. okay, aduu kuu shaqeey isla markii waa kuu shaqeynaa. saas waay, you don't need anything else. okay, hadii aragtid inaad ka baxday inta ka taabanaysaa saddexda meesha saddexda dhibcood log out aadaysaa. saas ugu baxday. okay, laakiin ogow meeshan inay keep me sign in oo qoran tahay. haddaad waqti rabtid aad computerka laptopka hadaadan lahayn badan waxaa fiican iskaga qaad bahashan. fahamtay? waqti macaan isticmaalaysa. okay, qaabka labaadna waa adiga kusoo download gareynaysa. aniga hadda waa soo download gareystay intuu u yaalaa saa u jeedid. okay, mar labaad ma download gareynayo, wuu ii diyaarsan yahay. installation is install ku sameynaa. install ku sameey isla markii ka saanayo ayuu soo qormay appku asaga isku furmaayo. waxa ku dhif kartaa wax walba ku diyaar ah. okay, asina sidoo kale haddaad iskan garaysid isla markii asaga ku keenay wax walba soo jeedid. sida wuxuu ku duwan yahay bis oo kaliya inta waxa la yiraahdo call ma isticmaali kartid. inta kale message haddaad dhahdid wax walba ku diri kartaa, document ku diri kartaa, sawirada ku diri kartaa, wax walba waxay ku kala duwan bis oo kaliya message ma isticmaali kartid. story xataa wuu leeyahay inta ugu jeedid. marka waa sidaas insha Allah inaad ka faa'iideysanayaan jeclahay. wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.